الرحمن الرحيم ما يبقى كسي توسا نينك جرا ugaas xasan cabdi maxamed owse ugaaska guud ee maaragtay golaha guurtida ee maamulka sadiida gobolka suubiyaha oo ka dareera shirka maaragtay hotelka Buckingham magaalada Baydhabo ugaaska oo maaragtay qadka telefoonkan ay kala xiriiriyo soo ku sugan magaalada Baydhabo yamay banin ku waramay shir jaraa'id iyo waqti dhow qabadan hotelka Buckingham magaalada Baydhabo ugaas ugu horeyntii ma ba faahfaahin noo siyaasa shirkin jaraa'id wali isku saabsanaay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah alayhi wa sallam hawada dibku xasuusiyo sida loo yahay dalkeena Soomaaliya wuxuu Soomaaliya daga sokeeye muddo 22 sano ahayd dalka wuxuu kala soo maray ururo ama diineed ama qabiilo u dagaalamaya muddadii 2 sano ahayd Somali kumeergaana oo nidaamka kale ay halka ku sii wareejiyay ilaahay hamdiga maanta dowladda Soomaaliya ee federaalka ummadda soo daashatay waxay gunta disha isaga dhigtay in la helo federal system ay qaadato ummadda Soomaaliyeed anagoo taa ka duulayna gobolada Shabeellada Hoose iyo Bokool waxay gawaadsadeen in waqti xaadirkan ay soo daltahay wala sameyn dowlad goboleed saddex gobol ee koonfur galbeed Soomaaliya sida constitutionka dalka uu qorayo waxay gunta disha isaga dhigeen sidii loo heli lahaa koonfur galbeed Soomaaliya oo saddex gobol laba gobol iyo wixii ka badan ba way saacayaan dastuurkii ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay baa qorayaan oo taa ka duulayna gunta disha isaga dhigeen alla ansixisada waqtiga calankii uu qaadan lahaa dowlad goboleed saddex gobol ee koonfur galbeed Soomaaliya waxa kala la ansixiyay constitutionkii ama dastuurkii ay yeelan lahaayeen saddex gobol ee dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya waxa kala la ansixiyay guddigii doorashada ee gobol xarka ah ee diyaarin lahaa nidaamkii loo heli lahaa doorasho xor ah ma xalaal oo xaqqa talada lagu yiraahdo free and fair election marka inta la ansixiyay mudaba malaysa magaalada Baydhabo ay ka kala furayaan laba gobol oo kala ah gobol iyo saddex gobol anagu kan garwaaqsanay eegnayna wariga maanta lagu jirana aan garwaaqsanay waxa noo soo gashay in saddexda gobol dowlad goboleed u dhisano sida daraadeed maanta waxa ka soo baxay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka mudane goodax warbixin bayaan uu soo saaray kaasoo oranaya dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya waxay tixgelinaysaa heshiiskii magaalada Addis Ababa 27kii bisha August ay kula soo gashay maamulka Juba ee ay ugu aqoonsatay dowladda Soomaaliya waxay kala aqoonsan tahay ama ay garab istaagaysaa maamul samaynta gobolada koonfur galbeed Soomaaliya khaasatan saddexda gobol Baay iyo Bokool iyo Shabeellada Hoose mulkiyeedka dowladda dhexe federaalka markuu ka soo baxay waxaan u fadhiisanay golaha naga odayaashii dhaqanka Digli iyo Mirif iyo walaalaha la deganaaba hotelka Buckingham shirweynaha uu ka socday si aan jawaab celin oo bixinaa warka ka soo yeeray dowladda dhexe Soomaaliya waana soo dhaweynada ما يبني شك ده انتيسين كاغر أصلا قان كي حكومة وزير كأرمها جودها مدن جوده لكن ما ركتي مدن جوده نفترض جاي بيدابو كوي ما ركتي شركة ديسيا سيد يسي ملاقات إسقلافن ولا ذوذتي أو ناي شركة ديسين لساتن مؤجليني أرن ديدن حمرا كناقدي مركا جوده أو حمرو هو يسين كاغر مثل ما ركتي قان كوسا كوباي كاغر سونو أولتا ما يهزيادي لان حمرو قدر قدر ما سنتهي وعن تاجرينه معها جوده لفيس أما وزارتي سماها وحنا تاجر هو قان ككسب هاي دولة الدحية فدرال كالصومالية وحنا أقابل سن أرمها الدولة الجواليدية أما معمولة الدولة كلاجد ساعي مستقبل كهدي الله إنه وزارة أرمها الجوالية أرمها الفدرال كمرك أبو وكان الله يقول ما أفسد وليه وأف دولة الدحية فدرال كعيلة هاي وحنا مثلا هاي دولة الدحية فدرال كالصومالية إنسان على قبلنا إمام الكوميرجانا بدل ما سووا قنصتي سد قبلنا ما أنت إلى المهدي أي قرب التكتيس دي لود بسلا حاجة أيو تجين كدولة الجوالات كلاجد ساعيو كفر قلبي سد على قبلنا مركا هي اللي هو اللي قرب تاجين أنا أقول الدولة بدل كان كيفتو هذا إنسان دولة الدحية باش عالم كو إنسان تاجرين شركة كان كسر ده قبلنا إن إنسان مرد الله هم بالله موقته دولة تو ساد هذا كبار شيء
muddo 2 jeer ama 3 jeer ayay deegaanadan kusoo laabatay si arrimaha ka jira deegaankaas xog ooga noqoto xogtina way aruursadeen waxaana suuragal ayaguna ogaadeen in saddexdan maamulkooda kulley si adkeeyo wixii dhaliilada laga saaro saddexdan gobol ee koonfur galbeed Soomaaliya dowladdu ay hubka ay soo taageerayso dibadda loogu aaso marka marnaba suuragal mayso taageero dowlad la'aanteed inaysan waxba soconaynin waayo dalka dowlad baa ka jirto haddaysan dowladda dhexe aqoonsanina wixii kasoo baxay idana maysan aqbali lahayn mar hadday dowladda dhexe ee Soomaaliya aqoonsatana shirkan saddexda gobol aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweyn laakiin su'aalis warsado ku mudooyana beeta dowladda dhexe maaragtay maamul dowladeed ee maaragtay wala shalmaare oo la tamasta maaragtay lan inti idis iyonay beertitiitis ya ku qaado lan kala siido maaragtay awood in lata maya adeer maba aaminsaniba aan dib ku xasuusiyo Addis Ababa 27 August markii la soo saxeexay heshiiskii Axmed Madoobe waxaa goobjoog ka ah xildhibaaneed Digil iyo Mirifa khaasatan ka soo jeeday goboladaas Jibooyinka waxayna raalli ku ahaayeen oo ay walaalaha Soomaaliyeed ama kuwa goboladan degan ay u sheegeen in waxa meesha ka dhacay ay raalli ku yihiin marka taasi waxay ku cadeynaysaa mar haddii xildhibaanadii deegaankaas ka soo jeeday ay raalli ku yihiin noqmadda raalli way taa marka annagu ujeedka iyagu ma aha in deegaan wixid leeyahay siiyo guri wixid leeyahay siiyo falkumani laakiin waxaan aaminsannahay in Jibooyinka maamulka kumeelka laga sameeyay walaalaha Soomaaliyeed deegaankaas degan walu banaan kara deegaanka laakiin reer kaliya madana wax umadu ay wada dhantahay laga sameeyo marka dowladdu awood uma laha inuu deegaan u dadleeyahay dad kala siisa laakiin waxa meesha ku jira waxa weeye waxa laga sameeyay Jibooyinka ma yihiin wax dowladdu ay ku xadgudubtaa ama aysan ku xadgudubin mar haddii dowladdii xilliga ku matali lahaa beelaha degan saddexdaas gobol ay raalli ku yihiin waa ayaga siyaasadda loo xilsaaray ayagana raalli ku ahaa saxeexayaashana waxaa ku jiray ragii deegaanadaas ka soo jeeda laakiin su'aal lamid ah oo bana ka warsada xildhibaano Digil Miriflaha ku jeedan Addis Ababa roogan iyo raalli ka hayaan arti tusaale ahaan ado oo ila hadalahay xilligoon oo maaragtay shirka bakiin ada roogda ma hayna ada lan ku tirsanay maamulkii lito gobol ongolaleey in badan ADC maaragtay ada roogdi ongolaleeyasi maaragtay in harbiyaasi oo haddana hasbedelay maaragtay hotel bakiin ada roogda xildhibaanasaas oo kale maaragtay wala fadaw lan sheegay may ka tilmaamo karo adoo mahadsan oo waan raalle وهذا ما صار له شيء وعن كمية بلاياشي مثلا كتيجي مرف هركا معمول سمعين تلقي الجوال كونفورت البيت سواريا مركان أركيين السورة دليل وقت هذا كان إلا يبدأ معمول ليه جوالا مركان أركيد باهدا ولا لا سوماليات أي ما كانوا جوال إلا قبل هذه بتدي دوري لو تكي سنة سورة داشتي مركان حورا مني أما حقوق على أمه غني عام كي الدولة تنحب فكرة أي جوالا كونفورت كقبته وحنوع ذاتي إن سد على جوالنا ودي ولا لا هو الدقيق أي وذلين هذي دليل كجران بني شاء الله صاروا سد على جوال كونفورت البيت سوماليا ودولكتا ونقل كيدين كما ولاجنا إذا سمعتان دولة جوالات أيجوا إليه مدر الله سنة يا حمد مدوبة نوم مجاوينا وشي حقوق ضد الديجان الدقيق إليه هنا أيوة كعيش الدولة تحيا صدر كسوماليا الحقوق ضد الديجان الدقيق السماء لبس أنا كدنا أفتي الله قالا قبل كونفرنس حتى يساعي كريان نحن قبل يساعان حتى يكراهان كريانا نقول بلا ماشي وجوه برتي سئية دتكي سعيدنا قارن مايسو Soomaalina maanta qori isugu faani mayso qori hadii waxa lagu qaadan la horeeyo la isu baabiyo waa lagu soo daraa marka qodobadaas aan ku soo taxay markaan arkaa waxa ii muuqatay inaysan waqti xaadirkan suuragal ahayn dib u dhacna u keenayso goboladan koonfureed ee saddexda in lagu xiraan oo la yiraahdo 6 gobol baa la dhisayaa taasoo ognahay caalamka iyo dawladda dhaxba inuu aqoonsan maamulku weergaara dib u dhaca si goboladan ooga dhixin in maanta wixii noo suuragal ahaya aan qabsano oo aan samaysano saddexdan gobol aan dhisano saddexda gobol afti loo qaada haday wax walaag karaan wala walaagaan goboladan lixda haday sidooda u kala ahaanayaan cidii deegaanadaas deegaan weyba cidii deegaan baa wax ku leh cidii deegaanadaas deegaan maamulka soo deegaanka ka jira wax la wadaagaan xaqa ayagu ku leeyihiin si qaw shirna u qaataan taas ay ugu dhaliseen waqti xaadirkan ku biyo okay su'aal lamaad yama beeta oo meel taal iswarsado ka mudan in badan yaa isigna shiraha ay tan hotel bakiinga ka shiraha ay tan ma aragtay qaybo shulga disin bulshada iyo meelahan iska aruurdan illa hadda meel taabado koro soo baday madoona ku gudubnay xilligoon
maaragtay shirki ADC hiraabtu madaxweyne dooradahayaan marka isigna may qorsheeyahay tan inta soo bidan mise madaxweynaha la doorada doon ADC ya fadaha san inta kaageertan maaragtay oo shirkiisin meelid fuwaado marnaba wad ma san tahay marnaba ma taageerayno shirka ka soo baxayo haata la leeyahay madaxweynaha loogu dooranaya lixan gobol marnaba hadaan nahay salaadiintiisa aan gobol taageeri mayno waxaan u taageerayna waxaan u aragnaa inay tahay riyo dadka qaar ay ku riyoonayaan dadka oranaya lix gobol baa la dhisayaa aan rabnaa lixdaas gobol inaan anagu yeelano dadka dhahayo waa dad rabo walaalaha Soomaaliyeed khaasatan digil iyo marflaha degan goboladan inay dib u dhac ku sameeyaan waxaan suuragelaynin adduunyada aqoonsan weyso dawladda dhaxana aqoonsan mayso sida daraadeed waa dad u fikiraya si khaldan oo rabo aqligooduna uu yahay markaan lixda gobol ku dhawaaqna kadib baan gorgortan la galaynaa saddexdaas gobol taasina waxay keenaysaa dib u dhac aad u weyn oo ku imanaya dadka degan goboladan koonfureed ma anagu lixda gobol intii loo doortay isaga loo doortay anagu taageeri mayno jawaabaha ka soo bixi doona biidnillaahi tacaala marka madaxweynaha loo dhawaaqana caalamkana kulli waa u dhintaabi doonaa dawladda Soomaaliyeedna sana amisana wardigdeg baa ka soo baxay horena wuu uga soo baxay mar hadday dawladda dhaxay aqoonsatay saddexda gobol anagu saddexda gobol baan dhisaynaa saddexda kalena xuquuqda aan ku leenahay anagu dadka degan saddexda gobol xaggana way degayiin taasaynu raadinaynaa si nabadgelyo ku jirto colaadii iyo dhibaato aanan u horseedaynin bulshadan dagaaladu ay soo daashadeen ugu dambeyntii ama qorsheeyaha ay tahay intiisi madaxweynihiisina suubsatan ayna la malaya intii madaxweynihiisina doorada doontan saas oo kale may bal sheegahay shirki kiikin oo bakiin ku dareer intiis Axmed Madoobe oo taageerahay oo xoolo iyo dhaqaalaha meel ka socda busdiibaha arintaasayna ma in ku jawaab lahayd Axmed waad wada ma santahay hadaan dib ugu laabto mid oranaysa Axmed Madoobe taageerayo shirkan ka socda bakiin waxaan u arkaa Soomaalidu way iska war badan tahay Axmed Madoobe anagu maanta xoolana oga ma baahin taageerada oga ma baahin ciidan iyo garabna oga baahin waxaan aaminsanahay deegaan isku filan dad isku filan iyo dhaqaale isku filan ba inaynu leenahay taasi waxay noqonaysaa marka ay beeno Axmed Madoobe shirkanaga uu taageero marnaba ma kala jeclin hadduu taageero iyo hadduusan taageerinba taasi halkaasaan ka oran lahaa mid Axmed Madoobe anagu dee mar haddaan calankii iyo dastuurkiina aan sixinay guddigii doorashadana aan sixinay cid kasta oo deegaankan saddexda gobol u dhalatay waxay xaq u leeyihiin rag iyo haweenba inay u tartami karayaan mas'uuliyadda ugu sarreysa ee goboladan koonfur galbeed Soomaaliya ee saddexda cid kasta way u tartami karaysaa cidda madaxtinimada gobolka dowlad goboleedka qabanaysa hebel iyo haween loo oran maayo goordhow baynu soo bandhigi doonaa musharaxiintu way fara badan yihiin dalka dibadda way ka imanayaan markay isu soo xaadiriyaan TV-gooda iyo aqoontooda cilmiyeed iyo diineed la eegaan bulshada goboladan koonfureed degan iyo Soomaalida kale walaalaha nahay dalka iyo dibadda joogta waan soo bandhigaynaa madaxweynena waan dooranaynaa cidii Ilaahay waa alfo subhanahu wa ta'ala eediyada maasniikaasi may bahay suldaanka guud ee maamulka sideed gobolka Suubiyaha deegaanada Bay Bakool iyo Shabeellaha Hoose oo si toos ah ku waramay warbaahinta Arlaadi eediyada maasniika suldaan